forever garlic thumb garlic and thumb wuxuu ka samaysan yahay garlic thumb wuxuu ka samaysan yahay toon iyo sactar waa waxyaabihii xilligii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dadka lagu dabiibi jiray waxyaabo badan ayuuna sactarku daawo u yahay maasha allahu tabaarak toonta sida aad taqaanaan jirkeena way kilingaraysaa circulationka dhiiggeena hagaajisaa dadka cholesterolka qabo dadka dhiigkarka qabo aaday ugu fiican tahay dhiigaga infectionka ku dhaca oo dhanna way ka kilingaraysaa marka forever garlic and thumb waa vitamin aad iyo aad u fiican maasha allahu tabaarak 100 xabaa ku jiro waxaa loogu talagalay maalintii qofka quraacda kadibna hal xaba qaadato qadada kadibna hal xaba qaadato cashada kadibna hal xaba qaadato garlic and thumb ma ahan kaliya dadka cholesterolka qabo iyo dadka dhiigkarka kaliya inay qaataan cid walba ayaa qaadan karto sababtoo ah waa vitamin kilingareynaya dhiigaaga circulationka dhiigaaga oo dhan ayuu nadiifinayaa waana vitamin aad iyo aad u fiican waxyaabaha wuxuu ku jiraa qurxinta skinka ka qayb qaata isagana maasha Allah sactarka feel of green ayaa noogu xigo waxaa ku jira 80 xabo feel of green jirkaaga wuxuu u yahay antioxidant waaye wuxuu kilingareynayaa calooshaada wasaqda ku jirta dheefshidkaaga oo dhan ayuu kilingareynayaa maalintii waxaa laga yaabaa inaadan isticmaali karin adiga konton cagaar oo la isku keenay ma isticmaali kartid maalintii mideeda kale wuxuu ka samaysan yahay barley and grass barley waa waxyaabo sida ah qamadiga oo kale ah barley wuxuu u fiican yahay waxyaabaha bakteeriyada caloosha ku dhaca ayuu u fiican yahay wuxuu u fiican yahay skinka ayuu wuxuu siiyaa qoyaan fara badan waana nafaqo wheat grasska oo kaleeto waa waxyaabaha timaha xataa u fiican ayaa ku jiro jirkeena aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay waa nutritional antioxidant waaye calooshaaduu kilingareynayaa si easy ah wasaqda calooshaada ku jirtuu kaa soo saaraya nafaqadana jirkaaguu siinaya waxaa ku jira 80 xabo dadka gaaska qaba aad ugu fiican yahay dadka cholesterolka qaba aad ugu fiican yahay waxyaabaha ciladaha caloosha oo dhan baabasiirka wuu u fiican yahay ciladaha caloosha oo dhan ayuu u fiican yahay qof kastoo bini'aadan uu u fiican yahay waxaad ka helaysaa nafaqadii aad ka heli lahayd cagaarka oo dhan adiga hal mar ma wada qaadan kartid waxyaabaha vegetable-ka ah marka waxaas oo dhan ayaad ka helaysaa waxaa loogu talagalay qofka maalintii 2 xaba inay qaadato sida quraacda kadib oo kale iyo qadada kadib oo kaleeto waxaa lagu daraa oo dadka loogu daraa forever proactive oo ah vitaminka aan ka soo hadlayno oo probiotic ahaa iyo aloe vera gelka iyo asaga ayaa la isku qaataa qofka markay ama baabasiir qabto ama ciladaha caloosha ay qabto ama gaas ay qabto aad iyo aad ayay iskugu shaqeeyaan waana waxyaabaha mar walba dadka aan ku advice gareeyo isticmaalo oo isla qaata sababtoo ah jirkaaga hal maalin ma ka wada isticmaali kartid cagaarkaas oo dhan